dharka hooyadaabaa iskale gurigaas waxba kama qaadan kartid albaabkaas istaag qofaa kuu soo dira wuu kuu imaana raac dhegeysa gabadha wax kuu sheegaa halkaad joogtaa lagugu imanaya waana lagugu cunayaa ayadii ayadu dhashay tuugada ah. ugu dambeyn xaqii ayaa ka soo daahiray Hana Abuukar waxa ayna soo bandhigtay habkay caruurta Soomaaliyeed u afduuban jirtay muuqaalo goosgoos ah oo ay soo geliday barteeda Facebook ay ku tilmaamaysaa qaababkii arxandarrada ahaa kuwaas oo ay caruurta Soomaaliyeed u afduuban jirtay. haddaba daawadayaal muuqaalkan waxaan kugula wadaagi doonaa xogo badan oo sir ah kuwaas oo qarsanaa muddo ku dhow 1 sano taas oo ay Hana Abuukar ka shiftay xaqiina Ilaahay uu ka soo daahiriyay. hase yeeshee inta aan kula wadaagin fadlan marka hore muuqaalka la garay si uu u baaho una gaaro waalidiinta Soomaaliyeed ugana taxadaraan dhagarta noocan oo kala ah. sidoo kale nagu soo biir oo kamid noqo asxaabteena adiga oo channelkeena subscribe dhahan. 3 bilood ka hor ayay ahayd markii ay baraha bulshada qabsatay arrinta ah in Hana Abuukar ay dhagarto caruurta Soomaaliyeed iyadoona u geysa dad cadaan ah. haddaba arrintan ayaa si weyn ugu baahday baraha bulshada waxayna dad badani ku baraarugeen dhagarta ay la damacsaneed caruurta Soomaaliyeed waxayna midaasi keentay in dadku ay muujiyaan taxadar dheeri ah. haddaba iyadoo waxaasi ay jiraan Hana Abuukar ayaa istifaaci jirtay waxayna sheegi jirtay inaysan wax caruur afduuban dadkana ay si tabarucaada wax ugu qabato. hase yeeshee ugu dambeyn Hana Abuukar ayaa sheegtay in caruurta Soomaaliyeed ay afduubato waxbana aysan u arkin arrintaasi. waa kan muuqaal ay arrintaasi ku sharaxayso. haddaba daawadayaal kuma koobno oo kaliya in Hana Abuukar ay sheegtay in caruurta ay afduubanaysa ay waxba ka gelin. hase yeeshee markan waxa ay sharaxaysaa arrin ama kaag iyo naxdin ku abuurtay dhammaan dadkii daawaday. waana Hana Abuukar oo ka sheekeynayso hooyo Soomaaliyeed oo nacday gabadheedii taas oo dhahayso gabadheeda uma baahni ee dad cadaan ah ku wareeji. waa runtii arrin aan suurtagal ka ahayn maskaxda bini'aadamka. haddaba waa kan Hana Abuukar oo ku banaysanaysa xatooyada caruurta Soomaaliyeed arrintan bal aynu isla daawano. markaas habarta ay dhiibto waxa ku dhageyso rajo ma kale ah ku dhig gabadha may maxaarta ina sameys waxay tiri Hana anigu 4 wiil aan haystaa I cannot take care kuma sameyn karo. waxay tiri hada waxba kama qaban karo marka I'm very very sorry meesha rabtid Hana la tag meesha kula aad Hana la tagay ugu tiri hada gabadhan igu dhibaan ku dhig telefoonka wallahi waxa idin sheegaa fiiri waa lii dhiibay gabadhi listen here ku dhahay are you okay dhageysaa ku dhahay marka waxaa samaynaysaa guriga intay ka deganta hal qol soo kama degnidaha alaabtaada dharkaaga waxaa ku dharkaas hooyadaabaa iskale listen here dharka hooyadaabaa iskale gurigaas waxba kama qaadan kartid albaabkaas istaag qofaa kuu soo dira wuu kuu imaana raac and don't come back this home. qolada social service ka ah oo shaqeysa weekend anaga khuur baan ahna ma aqaan af ingiriiska waxa lagu dhamaa anaga khuur baan ahna habeenkii weekendiga shaqeeyaan qolada baan u dhiibay waa u dhiibi doonaa iisug ana waxaas u joojinay qoladii khuurka u wacay weekendiga shaqeys waxaan ku dhig gabadhaas albaabkay taagantay please wadaan ku dhaqaateen baa laga taagan yahay guri walaashay dhashaa ku. haddaba arrimaha la yaab kale oo ay Hana Abuukar ceebaheeda iyo sidoo kale sirihii ay muddo qarinaysa ku kashiftay intan oo kaliya kuma koobno. hase yeeshee Hana Abuukar ayaa waxay caan ku tahay in markii ay baraha bulshada bil ka maqnaataba ay keento kiis cusub kaas oo ay ku sheegayso in gabar Soomaaliyeed oo dhibaataysan la caawinayo lacagana loo aruurinayo.
lacagahaas meesha la geehayo cid taqaana ma lahan, Hana ayaana afka u dhigan jirtay. Hase yeeshee dadkii Soomaaliyeed ayaa ku baraarugay, iminkana cid lacaga siisa ma lahan. Haddaba waa kan muuqaal la yaab leh, Hana Abuukar oo keentay kiis cusub, kaas oo ay ku sheegayso in gabar Soomaaliyeed abtigeedii uu uru yeelay. caawana waxaan idin hayaa gabar Soomaaliyeed la kufsaday, la xoogay, duq lagu daray, gurihiina ka jiranta, dulmiga gurihiina ka jira, gabadha Soomaaliyeed ee qurbo laga kaxeeyey, ee Muqdisho la geeyey, ee duleedkeeda baadiyeeda la geeyey, ee abtigeed uurka u yeelay, ee labada ilmood u dhalay, wax soo celinooya waana ka soo saaray Muqdisho, today baa ka soo saaray. Thank you dadkay soo caawiyey. safaaradii maanta gacanta ugu jirta maalintay wadankeeda ku soo laabatana iga soo hawlis hamogaanin gurihiina dulmiga ka jira. waa arrin ama kaag iyo naxdin leh, mana jirto. waa arrin ama kaag iyo naxdin leh. dadka Soomaaliyeed waxay haystaan 100% diinta Islaamka. suurtagalna ma ahan in gabar Soomaaliyeed ay waalidkeedu waxan oo dhibaato ah ku sameeyaan. mana jirto cid kale oo ka warqabta ama aragtay wax noocan oo kala ah. waxa ku koobay in dhibka ay ogaato Hana Abuukar. runtii waa arrin la yaab leh. hase yeeshee waxa guul ah in hooyooyinkii Soomaaliyeed ay baraarugeen, iyadoo live ku jirta halkii ay lacag u soo diri jireen, iminka ay u soo bandhigayaan xumaanteedii iyaga oo kaga digaya inaysan dadka dhibaateyn. haddaba waa kan hooyo Soomaaliyeed oo si live ah u canaananayso Hana Abuukar oo barteeda Facebook muuqaal toos ah kaga jirtay. dhegeysa gabadha waxaan kuu sheegaa halkaad joogtaa lagugu imanaya waana lagugu cunayaa ayadii ayadu dhashay tuugada ah tuugaya xuna u raadsaa sida warkaagana meel kastaan dhigaynaa dadkaan sharaftooda ku ciyaari sidii lacagta ku raadinaysa orod shaqayso tuugaya xuni dadka magacooda iyo sharaftooda iyo qabiiladoodana u dhig gabdhahana u dhig maalin walba waxaad ceebeynaysid aad ku shaqaysanaysid ku qaraabanaysid waan ku ognahay tuugaya xuna u raadsaa qabiilkeedana mar dambe aad u soo qaadaya kuma arki karna gabdhaha aad wajigooda meelaha soo dhigaysidna ogow in lagaa daba iman doono oo meel walba lagula joogo tuugayay maan beeshay intaad shaqaysan kari weydi baad tuugma ku shaqaysanaysaa tuugayahay quruntay has dhegeysataa ma harayno wallaahi bilaahi tallahi meeshaad gasho waan kaa daba gelaynaa tuugayay tuugadu dhashay hargeysay dhex jiiftaa wacdalla oo wacdalla dadaan u diri karaa hargeysay dhex jiiftaa qofaan ogahan u diri karaa qofka oga halkan ku jiraan u diri karaa marka maxaa ka faa'iidaa gabar Soomaaliyeed. haddaba daawadayaal qof kasta oo ummadda dhibaateeya xaqa Ilaahay ayaa ka soo